labada afkaar oo dalkan isku haysatay waxay ahaayeen wadaniyada iyo qabyaaladda. isticmaalka dalkan soo gumaystay Ingiriiska iyo Talyaanigu labaduba waxay adeegsanayeen waxa u fudud ay ummadda Soomaaliyeed ku kala qaybin karaan. wuxuu u noqday qabiilka marka muddadii gumaysiga lagu jiray waxa ay isticmaalayeen inay kala qaybiyaan oo na xukumaan. afkaarta isticmaalayeen wuxuu ahaa qabyaaladda. dhalinyaro Ilaahay u soo saaray oo tiri haddii isticmaalku uu isticmaalayo qabyaaladda waa inaan la imaanno waxa ummadda Soomaaliyeed mideyn kara oo wadaniyada ah si dalka loo xoreeyo dalkana loo mideeyo dowladnimada loo helo. afkaartoodii waa ka adkaatay kii isticmaalku uu watay oo ahaa qabyaaladda. koodii waa guulaystay. wadaniyadii yaa guulaysatay oo keentay in dalka gumaysiga ay ka xoreyso, in dalka uu dowlad noqdo, dalka inuu midoobo. afkaartii waxaa keentay wadaniyaddaa keentay. afkaartaas weli xoog iyo leedahay way sii xoogaysatay. waxay noo keentay dowladnimo, waxay noo keentay sharaf, waxay noo keentay dhaqaalihii inaan dhisno, waxay noo keentay Soomaali inay ka tilmaaman tahay adduunka oo ay sharaf ku leedahay, waxay noo keentay tacliin iyo iskuulle in la furayo jaamacado. dalkii waa dhistay. taasi waxay ahayd afkaartii wadaniyadda. laakiin nasiib darro muddo dambey daciiftay. waxaa soo noolaaday afkaartii qabyaaladda soo noolaatay. way soo noolaatay afkaartii wadaniyaddana waa sii daciiftay. taasaa keentay waddanka inuu galo dagaal sokeeye. dagaalkii sokeeye markuu dalka galayna afkaartii waxaa la qaatay qabyaaladda. waana aragnay Soomaaliya meeshay dhigtay. dalkeenay burburisay. ummadeennii waa kala irdhoobeen. dadkeenni waa qaxeen. qaar badan qaxooti aadeen. qaar badan badday ku baaba'een. ummadeennii waa kala qaybisay. waxayna dhigtay Afrika meesha ugu hooseysa. dalkeennii qayb yay kala noqdeen. cadowgeennii ama shisheeyana waxay heleen sababtii dalkeenna ay u soo gelin lahaayeen oo ay noo sii kala qaybin lahaayeen oo ay weliba noo maamuli lahaayeen. haddaba waxaan hadda arkeenno usbuucyada la soo dhaafay runtii ogaada dagaalkii waa socdaa ay ku hardamayeen wadaniyadda iyo qabyaaladda. marba mid baa soo kormara, marba mid baa xoogaysta. hadda waxaa ii muuqda rajo marka inay wadaniyadii soo xoogaysanayso oo uu qabiilkii jabaayo. waxaana ka gartaa dhalinyarada siday u muujiyeen astaantii qaranka ee calanka ay u muujiyeen, siday isugu soo baxeen, ay bannaanada u taagan yihiin, iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. macnaheedu waxay tahay wadaniyadii way soo noqotay. hadday soo noqotayna qabiilka waa ka adkaanaynaa. dalkeena dib buu u soo noqonayaa. waa dhisanaynaa. dhaqaalaheenni waa soo noqonayaa. sharafkeenni magaceenni waa soo noqonayaa. insha Allah hadduu leeyahay dalkeenna waa midoobi doonaa. haddaba waxaan kala dooranaynaa marka labadaas afkaar oo ishirdinaya oo dagaalamaya yaan kala dooranaynaa oo la kala safaraynaa. ama waxaan la safaraynaa kan wadaniyadda ah oo dalka dhisaya oo idinka idin walaaleynaya oo dalka mideynaya oo sharafkeenii karaamadeena noo soo celinaya. ama waxaan dooranaynaa kii aan soo aragnay 30 sano oo dalkeennii burburiyey oo adduunka meesha ugu hooseysa na dhigay. anuu ma aaminsan inaan qaadanayno kaas dambe inaan qaadanayno. marka dagaalkaas ay isku hayaan tribalismka iyo patriotismka aan la jirsanno. patriotismka wadaniyadda aan la jirsanno. soo ballan maaha. soo ballan maaha. waa qaadanay wadaniyadda soo maaha. dalkeena waa dhisanaynaa soo maaha. dalkeena iyo dadkeena waa midaynaynaa soo maaha. wasalaamu calaykum.